Sidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka? Akhristayaal ku xidhan manfur.com ayaa codsiyo dhowr ah noo soo gudbiyay iyagoo dalbanaya inaan si faahfaahsan ugu sheegno qaabkii uu u dhacay howlgalkaas iyo ciddii fulisay. Waxaan xog ka soo diyaarinay warbixin uu isla maalintaas dhacdada oo dhammaystiran ka qoray wargeyska New York Times oo xilligaas ilaa hadda ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer caalamka. Ku soo dhawaada qaybtii koowaad. Howlgalkan taariikhiga ah wuxuu dhacay subax Talaado ah oo ay taariikhdu ku beegnayd 18 Oktoobar 1977 iyadoo uu waqti 90 daqiiqo ah ka dhiman yahay xasuuq ay suuragal ahayd in loo geysto rakaabka diyaarad la soo afduubtay ayay ciidamo kumaandoos ah oo ka socday Jarmalka galbeed oo gacan ka helaya militariga Soomaaliya weerar ku qaadeen koox argagixiso ah oo diyaaraddaas ku haystay garoonka maanta loo yaqaano Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Halkaas waxaa lagu soo afjaray afduubkii diyaaradda ee socday 5 maalmood ilaa 6,000 oo maylna ay ku jirtay diyaaradda intii meelaha kala duwan marba mid la geynayay. Isla goobtaas ayaa lagu wada dilay 4 nin oo afduubka mas'uul ka ahaa waxaana la badbaadiyay rakaabkii diyaaradda oo ahaa 86 ruux iyagoo wada nabad qaba. Sidee ayuu u dhacay afduubka? Maxayse ahayd sababta? 4 nin ayaa la wareegay diyaaradda Lufthansa duulimaadkeedii lambarkiisu ahaa 181 maalin Khamiis ah 1 saac kadib markii ay ka duushay jasiiradda ku taala badda Mediterranean-ka ee Mallorca iyadoo ku sii jeeday magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Diyaaradda nooceedu wuxuu ahaa Boeing 737. Ragga argagixisada ah ayaa diyaaradda ku khasbay inay socoto 6,000 oo mayl waxayna sii marsiiyeen magaalooyinka Roma, Qubrus, Bahrain, Dubai, Cadan, ugu dambeyntiina waxay ka soo dejiyeen Muqdisho. Waxay dileen duuliyihii waday. Dhowr jeerna waxay waqti u qabteen in ay qarxin doonaan diyaaradda oo rakaabka saaran yihiin haddii loo fulin waayo dalab ay u gudbiyeen dowladaha Jarmalka galbeed iyo Turkiga oo ku aadanaa in loo sii daayo 11 xubnood oo ka tirsanaa kooxdii argagixisada ahayd ee magaceedu ahaa Bader Meinhof iyo 2 Falastiiniyiin ah oo ku xirnaa dalka Turkiga. Qaabkee ayuu howlgalka u dhacay? Howlgalkan wuxuu dhacay 1 maalin kadib markii uu aad u xoogeystay cadaadiska la saaray dowladaha Jarmalka iyo walaaca uu caalamka ka qabay xaaladda rakaabka 86 qof ahaa iyo 4 ruux oo ahaa shaqaalaha diyaaradda. Pope ama odayga ugu sareeya diinta Kirishtaanka ayaa wuxuu yiri haddii ay wax tarayso nafteena ayaan u hori lahayn in la xoreeyo rakaabkaas. Dowladdii Jarmalka ee uu hogaaminayay Helmut Schmidt ayaa howlgalkaas miro dhalka ahaa ku tilmaamtay guul weyn maadaama ay ku gacan sayrtay dalabkii afduubayaasha. Waxaa Muqdisho loo soo diray koox kumaandoos ah oo tababar gaar ah leh kuwaas oo la diyaariyay kadib markii uu xasuuq ka dhacay magaalada Munich sanadkii 1972. Guud ahaan howlgalkaas wuxuu socday muddo dhan 5 daqiiqo. Kumaandooska Jarmalka oo taageero ka helayay ciidanka Soomaalida ayaa qarxiyay albaabka diyaaradda. Si degdeg ah ayayna gudaha u galeen. Waxaa kale oo la sheegay in ciidan khaas ah oo ka socday waddanka Israa'iil ay howlgalkaas qayb ka ahaayeen. 2 askari ayaa ku dhaawacmay weerarka. Nin ka mid ahaa howlwadeennadii qalabka isgaarsiinta ee ku sugnaa Israa'iil oo laga wareystay idaacad ku taala Jarmalka galbeed ayaa sheegay in uu codka qalabkii lagu xiriirayay ka maqlay in mid ka mid ah shaqaalihii diyaaradda uu gaaray dhaawac fudud laakiin dhammaan rakaabkii ay ka degeen iyagoo wada bad qaba. Dowladdii Jarmalka maamuleysay xilligaas ayaa sheegtay in isla maalintaas ay Muqdisho geysay 60 kumaandoos ah oo howlgalkaas ka qayb qaatay. Maxay tahay sababta uu howlgalka diyaaradda uga dhacay Muqdisho? Soomaaliya ayaa sabab u ahayd in la badbaadiyo dadkii ku afduubnaa diyaaraddaas sida ay sheegtay dowladda Jarmalka. Laakiin sidee ayay Soomaaliya ku yeelatay ammaantaas? Qaybta labaad ayaan ku soo bandhigi doonaa hadduu Alle idmo. Fadlan haddaad ka heshay barnaamijkan share, subscribe, like. Mahadsanid.